halkan waxay ahayd magaalada Muqdisho oo dadka badan oo bulshada badan haddana waxaad moodaa in uu doog iyo cagaar ay runtii wada qaateen oo aadan arkayn meel aad ka saarto oo bannaan ma arkaysaa meelo yar oo ay dadku ay isticmaalayaan oo laakiin aad bay u gaaban tahay meelaha aad arkayso in uu dariiq wanaagsan ka furan yahay halkan ayaa waxaa ku badan geedka la yidhaahdo cali garoobka ama geed yahuudiga sida dadka u yaqaanaan xaafaddan ayaan booqday runtii waa xaafad laga guuray oo intii muddada dagaalka socday laga kala maqnaa waxaad moodaa inay dhowr madfac ku dhacday oo halkaas uusan waxba aysan ku harin runtii waan ka soo tagay gurigii runtii oo balibadii baan fiiriyey waxaan jeclahay inaan booqdo hadday ii suura gasho xaafado kale inuu madaxa gaarsiiyey waan ka tagay runtii waxaa wada yaqdiiraada maxamed nuur oo aad u yar iyo kaamirmaankigeeso halkana waxaad moodaa in meel laga baxaan arkaynin oo dog uu qariyey runtii geedkii caligaroobka la oran jiray runtii waxaan xaloolinayaa meel laga baxayaan la ah runtii waa jidkii baan u weysanahay halkii aan ka soo galay ayaa halkii aan ka soo galay ayaana u jeedin waan ka socday geedihii ayaan hoos maraya runtii waxaan jeclahay maanta inaan cagta soo wada mariyo xaafadan oo runtii aan ku aqaynay in ay population fara badan yihiin halkaan oo dhan waxaa ku yeelay guryo fara badan oo koox badan runtii oo kala mid walba mid kale ku qurux badan yahay eridan oo dhan runtii bal waan arkaynaa xaafadda aad bay u ballaaran tahay waan gudagalaynaa runtii halkaan oo dhan waa doog geedkii wey caligaroobka la oran jiray runtii haddii u kumudo waxaad moodaa dadku inay yidhaahdaan meeshuu kaa mudo runtii ma haysato ama dhibaato fara badan ayuu kuu geysanayaa geedkan ayaa runtii waxaa la sheegay in asalkiisa uu ka yimid xerada jarmalka oo ku taal runtii magaalada muqdisho abuurkiisa u yiilay oo berigii maxamed shaab jira kadib dadka ay ka soo qaadeen mirihiisii halkan ay ku daadiyeen xoolihiina ay cunayaan runtii oo sidaas ay ku faafeen socodkii ayaan sii wataa runtii oo waxaan rabaa maanta inaan xaafadan soo intii aan ka gaaro runtii oo waqtiga ii saamaxo bal inaan soo maro waxaan isaacidaya yarka yar maxamed nuur maadaama aan la ahay meel aan ka baxo oo meel walba uu gooyey geedkan xanuunka fara badan leh meeshuu kaa mudo waad arkaysaan geedka waa hal nooc runtii wax ka baxaya halkan way fiiryahan geed kale runtii waxaan leedahaa sida badan meesha uu kan ka baxo halkanna waxaa ahaa runtii dariiq muhiim oo dadku ay wada maraan haddana waxaad moodaa inuu go-an yahay halkana waxaa ku yili guri waxaad aragtaan jaqaf ka mid ah gurigii oo intiisii kale runtii uu baaba'ay bal fiiri dhibaatada gaarsan jaqafkan oo aad aragtaan waxaa guri ka muuqdo wuxuu ka haray runtii guri dhan oo dhismo ah waa aragtaan halkan burgaraafku yaala runtii aad buu u jarjaray waxaa ka soo har runtii qoys dhan oo ku noolaa ayaa ku baaba'ay gurigaas runtii oo aad aragtaan inuu aad u baaba'san yahay waxaana moodaa in guryihii kale u dhawaa xataa uu saameeyey halkaas wixii ku dhacay oo dhibaato ahaa eridan oo dhan runtii waa wax hadda ka muuqanaya oo dhismaha ma jira waxaana dhameeyey runtii madaafiicdaas ku dhacday bal socodkeennii aan sii wadanno oo waxaan booqanaynaa masaajidka keliya ee xaafadda ku yaalla bal aan gudagalno hadduu ilaha yihahdo insha allahu tacaala waxaan halkan kula kulmi doonaa hadduu ilaha yihahdo in yar oo jamaacada masaajid ka mid ah oo aad u dhalin yar oo runtii ka sheeganaya biyo-la-aan masaajidka ka jirta oo runtii dhib weynna ku ah halkan oo qaafilka ku jirin wax ceelan aysan ka qornayn waan ka sheekeysanaynaa runtii wax badan ay iga sheegeen masaajidka duruufaha ka jirta jaamacadana inay aada u yar tahay ii sheegeen runtii oo ilaa 5 qof ilaa 6 qof ay ku dukadaan runtii dhibaatada kale ee jirta waxay tahay in aysan heli karin xataa meel ay wax ka soo iibsadaan oo ay wax ka gataan socodkeennii aniga sii wadan ayaan bal biyihii runtii baraydkaas ayaa biyihii ku jiraan oo biyahana aad ayay u kooban yihiin waxaana moodaa inay yihiin biyihii cirka yimid oo xeeb ahaa masaajidkii minaaradiisiina waa taa runtii waa masaajid aad u qurux badan oo ahaa runtii masaajid taariikhi weeye masaajid aad u qurux badan aad u jamaaco badan ayuu ahaa haddana waxaad moodaa in ay 3 cunug iyo 4 dhalinyaro ah waxaan ka badnayn inay ku dukanayaan
runtii waxay la mid tahay xaafadaha kale maadaama xaafadan saamaynta ugu weyn ay ku dhacday bal socodkeenii ayaan sii wadaynaa waxaan jeclahay inaan bal booqdo hadday ii soo rogasho xaafado kale laakiin waxaan jeclaan lahaa maanta in aan halkan kusoo koobno maadaama xaafadu ay ballaaran tahay runtii meel laga baxna aan la helaynin